jaaliyadii ardayda maamul goboleedka Qaatumo ee ku nool dalka Suudaan ayaa si diiran u soo dhaweeyay shirka ka furmay magaalada Taleex oo la doonayay in lagu soo doorto madaxweyne cusub oo hogaamin doona maamulka Qaatumo 4 sano soo aadan sidoo kalena waxay si shucuur ku dheehan tahay ugu mahad celisheen madaxweynihii hore ee maamulka Qaatumo Maxamed Yuusuf Jaamac Indhasheel oo ay ku tilmaameen inuu ahaa horumar la taaban karo gaarsiiyay maamul goboleedka Qaatumo ee State of Somalia shirkan ay isugu yimaadeen jaaliyada iyo ardayda maamul goboleedka Qaatumo ee Soomaaliya ayaa waxa furay gudoomiyaha ururka daraawiishta Suudaan Cabdirasaaq Axmed Jaamac Qooje isagoona sheegay in aad u soo dhaweynayaan shirka Qaatumo 3 ee ka furmay magaalada Facaweyn ee Taleex إن عن هذا القطاع النووي بس كنفس مشير شرائع وعن كذا حضرنا تغيير ده شركة كفرمي مجالات تاريخ تاريخية وإن عن يطلع له لأنه تذكر مع الشرعية وإن عن وحن باليوم تذكر الشرعية أنا بتوقع مع تكلم بقارنا وحنا إن عن سيجارة ووحن باليوم ولا حكومة وجاني محمد يوسف جامع Indhasheel madaxweynaha maamulka Qaatumo oo hawsha qaar kamid ah ka soo qayb galayaasha kulanka ayaa iyagu cabiraya dareenkooda ay ku soo dhaweynayaan shirka Qaatumo 3 ee ka furmay magaalada Taleex annagoo ardayda reer Soodhesko Somali Dervish Students in Suudaan kuna hadlayna dadka halkan isugu yimi una hambalyeynayna shirka ka furmay magaalada taariikhiga ah ee Taleex waxaanu leenahay gacmo furan intii taagtayada iyo wixii aanu ka geysan karno oo maanta ay ugu horeyso inaanu soo dhaweyno annagoo ka hadlayna warbaahinta waanu soo dhaweynaynaa waanuna taageersanahay wixii aanu ka qaban karno ee awoodayada aanu ka qabanayno islaamiga anigu magacaygu yahay Faysal Jaamac Sahal waxaan si buuxda u taageerayaa shirka socda magaalada taariikhiga ah Taleex shirkaas oo lagu magacdaray Qaatumo waxaan hambalyo aan soo kordhin يا مشاركة تاريخ ممكن وقت على مسابقاتي شركة وصيب وقت يعني حرش وقت والبنا تاريخ من بعض فضل الدسوق وانتا ماشي كجلا سوق الواحد عم بلي ودنا يوم الحين الشال وقلت يا أصلا وقت بدن سوق هذه داعمين يصير ماشي على كذي السلام عليكم وحان هلكن كم عرضنا أنا وعرضنا السودان خدمة جوكتا waxaa jira website-yada wareeg bixiyeen haween intii guriga ugu arooriyay maxay tahay aflagaadeeyay madaxda iyo siyaasiyiinta Qaatumo State of Somalia waxaanu ognahay oo warar ugu kalsoon yahay ay sheegayaan inay yihiin haweenkaasi haween ay SNM ka soo abaabushay burco mana istaahilaan inay aflagaadeeyaan dad waxa laga keenay madaxda Qaatumo iyo siyaasiyiinta iyo garaadada shirkuna wuu socdaa wuuna soconayaa Qaatumo 3 ayaa isagu ahaa mid wax badan uga gadisan shirarkii ka horeeyay ee Qaatumo 1 iyo 2 maadaama aqoon-yahanada iyo waxgaradka reer Qaatumo markaan ay u kaceen nabad iyo horumar hiigsi dheer ay u soo galeen Maxamed Ciise Koona Somali TV Khartoum Suudaan